بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا داون إساء إيميل كستوى الدنيا كجوكتان كسر وادا برنامج كاره ونوغاها اللي دونه إلى الدخل وكسو قلو وسارة مالية دولة بنتلان إيقاب كالو معمولو الدخل قاسي برنامج كان قاركا هو يسوق من قابسي وسارة مالية قارهان واحدة أما أقاسين كالدخلقو انتو سعودو وحين قلق قيب قلي دونا بروفيسور نوراني حاج محمد ولنا عايقة فردياه أقاسمها دقاها دبادة وسارة مالية دولة بنتلان sidoo kale barnaamijka inagala qayb gali doona maxamed maxamuud muuse ilkacase oo ah khabiir markaas ah siyaasadaha canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland qaabilsan waxa sidoo kale barnaamijka inagala qayb gali doona maxamed maxamuud yuusuf oo ah hormuudka kuliyadda xisaabaadka iyo maamulka ee jaamacadda Boosaaso faraceeda magaalada Garowe ee caasimadda Puntland dhammaantiin barnaamijkan gaarka ah waan ku soo dhaweynaya وطاي بروفيسور نوراني بانكو بلاويا بروفيسور سودو مركله دينا دخل دينا دقالها دبده كيمانيا اما دقالها بنانka ka soo gala wasaaradda ayaa dabcan agaasin u tahay oo maamusha waa maxay marka ilaha dakhliga baan rabnaa dadka inay u faahfaahisid ee wasaaradda maaliyadda Puntland ay hesho iyo meelaha ay ka soo xiroodaan بسم الله الرحمن الرحيم وزارة المالية دخلها أي شرطي وزارة المالية وحي صارنتها هي أورنت دخلها دولة دخلها سو وبدأ هي وكي ماذا لبن ميلود وحلا يراهدون محوها دخلها فردوينكا iyo dakhliga canshuuraha bariga dhamaan dakhliga soo dhan waxa la isku yiraahdaa domestic revenue waa dhamaan dakhliga laga ururiyo dalka gudihiisa hase ahaatee guud ahaan Puntland markaan ka hadlayno dakhliga Puntland ama ay u baahan tahay si ay u dabasho kharashaadkeeda wuxuu noqon karaa laba qaybood waxa la yiraahdo dakhliga gudaha laga ururiyo iyo dakhliga deeqaha dibadda ama deeqaha caalamiga ah waxa la wixii external fund wadanka yimaado oo mashaariicda lagu socodsiiyo labada qaybood oo dakhliga dalku ayuu ka kooban yahay waan soo noqon doonaa su'aalaha ku saabsan si faahfaahino dakhligaasi siyaabaha loo maareeyo iyo dabcan dhinacyada ka yimaado waxaan doonayaa ka qaybgalayaasha kale ee doodada inaan ayagana bilowga baan fursad siiyo waxaan soo dhaweynayaa maxamed maxamuud muuse oo ah siyaasadda canshuuraha ee wasaaradda maamula maxaa loola jeedaa siyaasadda canshuurta bal haddaad sharaxaad kooban ka bixiso qaabka dabcan xafiisku u shaqeeyo iyo siyaasaddaasi noo micnayso marka ugu horeysa aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed khaasatan bulshada reer Puntland iyo TV-ga barnaamijka hoosta garanaya Puntland TV haddaan ku soo dhawaado su'aasha waxa weeye xafiiska siyaasadda canshuuraha wasaaradda maaliyadda ee Puntland wuxuu qaabilsan yahay dhammaan wixii siyaasad canshuureed haday tahay tax reform la samaynayo haday tahay amendment lagu samaynayo siyaasadda canshuurihii hore u jiray oo tax systemka ahaa marka laga hadlayo tusaale ahaan siyaasadda canshuuraha dawladda Puntland waxay ku xiran tahay dal walba wuxuu iska leeyahay waxa loo yaqaano policy isaga gooni u ah marka siyaasadda iyo waxa loo yaqaano political systemka dalka iyo waxa loo yaqaano economic systemka dalku labaduba xiriir baa ka wada dhexeeya wasaaradda maaliyaddu waxay dejisaa iyadoo waxa loo yaqaano fiscal policy wasaaradda oo ah siyaasadii guud ee canshuurta maaliyadda ee dalka oo ah how to spending sidii loo qarash gareynayo wixii revenue iyo dakhli soo ururay iyo sidii wasaaraddu ay ku soo ururin lahayd canshuurtii ku waajibtay dalka dhammaan dadka canshuur bixiyaasha labadaas majalba ugu waaweyn labadaas ugu weyn marka waxa sii jira isaguna xafiis wasaaraddu iska leedahay oo la yiraahdo tax policy unit oo isaguna qaabilsan internal marka loo dedegayo siyaasadda canshuuraha oo kaliya inoo fiscal policy dalka oo macroeconomic fiscal policy ka shaqeynaya tax policy unit wuxuu ka sii shaqeynayaa tax administration iyo tax policy canshuuraadka wasaaradda maaliyadda wataa aad baad mahadsan tahay maxamed dabcan waan ku soo noqon doonaa waan faahfaahin doonaa intaas ka badan xafiiska iyo howlihiisa waxaan u imanayaa aqoon-yahan maxamed maxamuud yuusuf oo inagala jooga jaamacadda bariga aan iraahday Boosaaso University faraceeda magaalada Garowe dowr inta leeg ayay jaamacadaha wadanku ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha wadanka adoo soo koobaya maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدو ما سنت محمد وزارة المالية دي تي في دولة دنا وما هنقينا دور كأي كوي لان كران جامعة horumarka dhaqaalaha wadanka sida ogtahay hay wadan marka laga hadlayo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa waxay ku xiran tahay kheyraadka uu haysto kheyraadkana marka si guud loo fiiriyo laba qaybood baa loo qaybiyaa
qayb waa khayraadka waxyaabaha dabiiciga ah macdanta aynu leenahay shidaalka aynu leenahay beeraha aynu leenahay waxyaabaha aynu leenahay xoolaha iyo kalluunka iyo badda wax ku jira waxana waa dadka oo waxa ugu muhiimsan marka jaamacaduhu marka laga hadlayo doorkaas waa soo saarayaasha khayraadka wadan u baahan yahay noociisa ugu muhiimsan hadaad wadamada caalamka fiirisid maanta waxa lagu kala horeeyo dunidu ma aha waxa la yiraahdo khayraadka dabiiciga ah waxa maanta lagu kala horeeyaa dadka hadda u fiirsatid wadamada tan Japan iyo Singapore iyo dhammaan wadamadaas adduunka maanta wadamada ugu dhaqaalaha badan bay ku jiraan haddana wadamada ugu khayraadka yar weey marka jaamacaduhu marka la yiraahdo doorkoodu wuxuu yahay jaamacaduhu waxay soo saaraan human capitalka wuxuu leeyahay dadkii marka waa meel kamid ah meelaha ugu muhiimsan ee wadan ku horumari karo ama ka liigi karo hoos uga dhici karo marka kaasi waa qodob oo waxay soo saaraan khayraadkaas ay soo saaraan tan labaad waxay tahay jaamacaduhu waa meelaha wadamada haga oo ku haga wadada horumarka ama wadada dib u dhaca jaamacaduhu sidaad ogtahay cilmi baarisyo ay sameeyaan baa waxa ka yimaada horumarka developmentiga dadka ay soo saareen baa suuqa taga waxay keenaan ikhtiraacyo iyo fikrado cusub waxay ganacsiga ku soo kordhiyaan wax cusub waxay noqdaan waxa ugu weyn ee wadankaasi uu ku faani karo marka dhanka kale marka laga fiiriyana jaamacaduhu waa institutionada wadanka ka dhisan mid kamid ah waa sidii sharikaadkii oo kale waxay ka qayb qaataan shaqaaleysiinta wadanka oo waxa laga yaabaa hadda jaamacadda Boosaaso aan ka socdo oo kale farceeda Garowe 100 iyo dheeraad qof baa bishii u soo xaadiro mushaharka qaata kaligeed waxaad moodaa institutionada kale marka loo fiiriyo de multiplication factor si hoosana qayb bay ku leeyihiin si guud marka loo fiiriyana waa khayraadka ugu weyn oo wadanku haysta iyaga soo saara aad iyo aad baa maasanta Maxamed oo ku soo noqon doona waxaan soo noqonayaa professor Nurani waxa sheegtay dabcan ilaha dakhliga wadanka soo galo iyo dabcan sida dhaqaalaha wadanka ku soo xirado baad wuxuu nooga taabatay inagoo ku sii socon doono dabcan oo siyaabo kala duwan u faahfaahin doona maxaa ka hirgelay marka ilahaas dakhliga ee dawladda Puntland ma sii jiraan ilo dakhli oo ilaa hadda aan fulin caqabadaha hortaagana bal wax inooga sheegay ay jiraan runtii dakhliga Puntland waa hirgalay hadda sanadkan u dhameeyay 2019 runtii wuxuu ahaa sanadkii dakhligu aad kor loogu qaaday taasoo waxay ku timid siyaasadda wasaaradda maaliyadda muxuu ahaa wasiirka Xasan Shariic Cabdi oo ahaa in dakhliga la gaarsiiyo 85% in la gaarsiiyo runtii dakhligaasi muxuu ahaa meelo badan ka soo xorooday fikir ahaan insha Allah waa la hayaa waa diyaarsan yihiin dakhligaas marka runtii wuxuu u badan yahay saan marka hore ku sheegay muxuu ahaa dakhliga fardooyinka iyo dakhliga muxuu ahaa cashuuraha bariga waxa aad loo dardargeliyay gaar ahaan sanadkan hadda cashuuraha dakhliga bariga ayaa kor loo qaaday sida cashuuraha roodtagsiga ama muxuu ahaa wada marista dakhli fara badan baa ka soo xorooday waa jiraan dakhliyo ilaa hadda aan muxuu ahaa la hirgelin sababtuna waxa weeye for example waxa kamid ah dakhliyada aan ilaa hadda la hirgelin waxa la yiraahdo corporate taxiga kamid ah waxa kamid ah muxuu ahaa cashuurta kala wareejinta hantida muxuu ahaa guryaha iyo dhulka waxa jira cashuuraha sida cashuurta boolada oo runtii aan wali si fiican u dhaqaaqin ayaa jirta cashuurta daaraha dhammaan cashuurahaasi waa cashuuraha la rajaynayo mustaqbalka in muxuu ahaa lagu soo kordhiyo dakhliga waxaana ay sugayaan qaarkood for example in la sameeyo muxuu ahaa la sameeyo xeerarkii muxuu ahaa labada golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku inay ansixiyaan muxuu ahaa dakhliyadaas si kor loogu qaado Maxamed baan la joogo dhinaca cashuuraha dabcan siyaasadeedii maamulaha marka waxaan doonayaa inaad ku soo dhawaatid caqabadahaas inaad si hoos u faahfaahisid dhinacyadaas canshuruhu ay ka iman lahayn hortaagan iyo guud ahaan caqabadka ku xeeran canshuur qaadista Puntland horta waa sida uu sheegay professorku cashuuraha la qaado waxa weeye waa laba qaybood midna waa direct tax wala ila cashuurta tooska ah iyo indirect tax cashuurta dadban oo waxayna inaga soo kala galaan labadaas source of revenue inaga soo galo waxa weeye waa customka iyo inlandka cashuuraha bariga labada meelood dakhliga inaga soo gala marka laga yimaado wixii external fund ah ee inoo yimaado ama dawladda federaalka ka yimaado ama beesha caalamka ka yimaado ama hay'adaha kale support galay Puntland ka yimaado runtii marka laga hadlayo cashuurta la qaado Puntland waxa weeye aad iyo aad bay loogu tahay marka loo eego
adduunka haddaynu iskaga nimaadno dariskana ka bilowno Djibouti iyo Kenya iyo Ethiopia iyo inta neighborhoodskana ka bilowno waxa weeye cashuurta Puntland ay qaado aad iyo aad bay u yartahay runtii marka loo eego standardka internationalka ah yelkadeeda haddana waxa weeye dawladdu cashuur way qaadaa cashuur fiicanna waxa weeye waa bixiyaan ganacsatadu bal caqabada inoo raaci marka caqabadaha hadda taagan waxa weeye waxa loo yaqaano tax compliance waxa weeye dadkii cashuur bixiyaasha ahaa aan weli si fiican u fahansaneen cashuurta ay bixinayaan sababta ay u bixinayaan maxay tahay marka waxyaabaha hadda taagan problemska ah bay ka mid tahay in bulshada reer Puntland ay ku wacyigashanaadaan cashuurta la qaadayo laga qaadayo maaha qofka cashuurta isaga markuu bixiyo cashuur bixiyahay inuu direct benefit yahay oo isagu si toos ah uga faa'iideeyo cashuurta laakiin cashuurta waxa looga faa'iideynaya dalkii waa looga faa'iideynaya mushaarka shaqaalaha lagu bixinaya kii ciidanka lagu bixinaya infrastructure iyo dhismayaasha wadooyinka lagu dhisay ama ha noqoto wadooyinka dhaadheer sida tusaalahan hadda ergaabo kale ha noqoto wadooyinka kale ee magaalooyinka dhexdeeda ka socdo infrastructure baa socda dhismayaasha iyo institutionska dawladda ha noqoto waxbarashadii ha noqoto wax badan baa dawladdu cashuurta dalka laga qaado ay dib ugu celisaa wax weeye haykalkii dawladnimo ee inoo jiray Puntland ayaa kamid ah waxaas dhan waxa lagu maamulayo lagu administrate gareynaya wax weeye waa cashuurta laga qaado dadka marka caqabaduhu runtii way iska badan yihiin oo waxa ugu badan waxa weeye waa faham la'aanta shacabka iyo dadweynuhu ay ka haystaan cashuurta dawladdu ay ka qaado oo waxa weeye aan dad bana aanay fahansaneyn tusaalahan sales tax oo kale iyo baadka kale marka laga hadlayo waa cashuur maaha qofka ganacsadaha uu bixinayo laakiin waa cashuur qofka raacas tusaalahan anigu hadda meherad markaan haysto supermarket oo kale cashuurta shay aan iibsado tusaalahan shaar baan iibsaday ama kabaan iibsaday kabahan iibsanayo ama shaarkaan iibsanayo waxay ku dhacaysaa cashuurku qofka final consumer ka productiga qaadanaya ama shaarkii ama surwaalkii ama kabiga qaadanaya laakiin dadkii ganacsatadii waxay u fahmayaan cashuurta la qaadayo inay iyaga ku dhacaso oo waxa weeye marka dhibaatooyinka ku wajahan ama ku gadaaman kuwaas ugu badan oo ah in la sameeyo campaigns hadda ay wasaaradda maaliyadda wada tax education ka qaybteeda oo imanayna sida loo kicinayo dhinacyadaas iyo dabcan sida caqabadaha loo xalinayo waxaan rabaa maxamed maxamuud inaan u imaado Yusuf adoo dabcan waxaad nagala joogtaa marka laga yimaado jaamacadii haddana shacbiga ama dadka rayidka ahaa ee cashuur bixiyaasha baad nagala joogtaa maadaama ragga leeyihiin mas-uuliyiin wasaaradda matalaya marka ma waxaan rabaa inaad kor ka cabirtid caqabadaha la sheegayo ma ku muuqdaan adiga shakhsi ahaan qaybtaada laftigeeduna waxay ahayd qaybta xisaabaadka iyo maamulka baad baabinaysay jaamacadda marka baad deen u ahayd marka bal caqabadahaas ma ku muuqdaan sideese aad xalkoodaas maxaad ku talin lahayd maxamed aad baad u mahadsan tahay xaqiiqdu waxay tahay caqabadahaas way jiraan lamana inkiri karo waxaan isleeyahay caqabadahoo dhan marka laysku soo ururiyo waxay ku soo ururayaan waddan waxayna horta dee burbur ka soo kabanaya wax badan oo nidaam aan jirin haddeera dib loo hagaajinaya waynu koraynaa oo ma rajayn karno wax walba inay isla markaa xalismaan ama meeshaas laga xaliyo marka mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn oo aan isleeyahay way jiraan waxa weeye arrinta kalsooni darrada ah waxaa laga yaabaa inay qayb ka mid ah shacabku aysan kalsooni ku qabin canshuurtan ay bixinayaan inaysan iyagaan wax loogu qabanin marka xalka ugu weyn waxaan filaya caqabaduhu waa badan yihiin kalsooni darradaasaana jirta dowladda iyo wasaaradda maaliyadda waxaa laga rabaa dadka inay tusaan in waxa kan uu yahay wax ku soo laabanaya canshuurtu inaysan ahayn wax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirku urursadaan oo jeebka gashadaan ee ay tahay waxa lagu fuliyey adeega dadweynaha sida wadooyin la dhisayo caafimaad laga shaqaynayo waxbarasho laga shaqaynayo horumarkii laga shaqaynayo qofka shacabka ay marka uu fahamka helo oo uu fahmo in waxa kan ay tahay wax cunugiisa wax lagu barayo caafimaadka hooyada looga shaqaynayo waxa meesha ka baxaysa caqabad kastoo jirtay waxayba noqonaysaa in wax walba fududaadaan marka waxaan u malaynayaa taasaa ugu weyn caqabadaha guud taasay ku wada hoos ururayaan laakiinse waxaa ugu muhiimsan waxaan filayaa in laga rabo wasaaraddu siday u dhisi lahayd kalsoonidaas dadkan uga dhaadhicin lahayd inay aaminaada helaan waxaan rabaa inaan usoo laabto professor nuurani oo dabcan nagala jooga ama maamulaha agaasinka ah deeqaha dibadda ee wasaaradda agaasime marka la soo dhawo waxaan doonaya inaan ku weydiiyo maxaa ka hirgalay ama haddaan kasoo tagno midaasi dakhliga dibadda kasoo xirooda ma ka dhex muuqdaa miisaaniyadda dowladda mase yahay wax la arki karayo dabcan
dhaqaale meel buuxin karaya runtii horta dakhliga kasoo xorooda muxuu ahaa dibadda ama deeqaha dibadda waxyaabaha la yidhahdo external fundku waa badanaa waa mashaariicda programmeska iyo projectska ay siiyaan hay-adaha caalamiga ama deeqaha bixiya deeqahaasu badanaa waxay ka yimaadaan donorska ka yimaadaan waxayna soo maraan muxuu ahaa hay-adaha international UNDP ama hay-adaha caalamiga sida UNDP da UNICEF ta WHO WFP iyo hay-adaha kaleeto oo la yiraahdo muxuu ahaa hay-adaha maxalli international NGOs ka soo maraan sidoo kale waxay ka yimaadaan World Bankiga dhammaan deeqahaasu ama deeqaha halka ka yimaada laguma muujiyo wasaaradda muxuu ahaa miisaaniyaddan laguma muujiyo hase ahaatee mustaqbalka waxaa qorshuhu yahay in dhammaan deeqahaas laga muujiyo wasaaradda muxuu ahaa miisaaniyadda lagu muujiyo deeqahaas waxay tagaan wasaaradda waxay leedahay mashaariic hay-adaha caalamiga ay gacan ka siiyaan muxuu ahaa iyaga ayaa la maamula iyaga ayaa muxuu ahaa dhaqaalahaas siiya muxuu ahaa hay-adahaas mashaariicda kala duwan ay sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda deegaanka muxuu ahaa haweenka dhammaan mashaariic bay helaan deeqaha dibadda ah laakiin wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddeeda kama muuqato insha Allah waxaa la rajeynayaa mustaqbalka in sida hadda muxuu ahaa dakhliga gudaha ka soo xirooda sida looga arko miisaaniyadda inuu jiro component ah muxuu ahaa international muxuu ahaa funding in laga arko wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddeeda sababta ma inoo sheegi kartaa marka professor runtii waxaa la rabaa horta wasaaradda maaliyaddu waxaa la rabaa waxaa maqan barnaamij waxaa soo socda la yiraahdo muxuu ahaa treasury single account in dhammaan deeqaha dalka imanaya hal meel soo maraan hal account laga maamulo marka account-ka la sameeyo insha Allah mustaqbalka sanadka soo socda hadda waa qorshaha waa ku jira markaas ayaa dhammaan deeqaha caalamiga ah ay soo marayaan wasaaradda maaliyadda laga maamulayo markaas ayaa la socon karaa muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa deeqahaasi muxuu ahaa deeq wixii yimaado dakhliga iyo sida loo kharaj garayo mashaariicda lagu kharaj garayo insha Allah waxaan u imanayaa maxamed muuse ilkaas waxaan doonayaa rasmi bal qaabka lagu qiyaasi karo dakhliga soo gala dawladda waa sida runtii dakhliga marka la eegayo soo gala dalka ama Puntland soo gala wasaaradda maaliyaddu samayso waxa lagu sameeyay horta gobollo ka soo gala gobollada ka soo galana waa labada meel aan ku sheegay waa customs cashuuraadka inaga soo gala furdooyinka iyo cashuuraha inaga soo gala wax loo yaqaano cashuuraha bariga labada meelood ayuu inaga soo galaa dakhligu maadaama labada meelood inaga soo galo oo source revenue haysano marka laga yimaado external bank oo iska daciif ah hay'adaha iyo international NGO iyo waxyaabahaas ay bixiyaan oo dawladda federaalka iyo waxa weeye beesha caalamka aan wali waxba saa u buran laga hayn laakiin domestic revenue ama dakhliga gudaha labada meelood inaga soo galaa marka forecastingka marka lagu sameynayo tusaale ahaan dakhligii la saadaalinayo waxa madaxiyuu leeyahay waxa loo marka hore waxa loo sameeyaa saddex qaybood baa loo sameeyaa forecastingka dakhliga marka la sameeyo waa long term forecasting oo ah 3 sano 2 sano midna waxa weeye waa medium oo 1 year iyo wixii ka hooseeya 2 year baan leeyahay meelahaas midna waxa weeye waa short oo waa 1 year aan below wixii ka hooseeya soo 6 bilood 3 bilood 9 bilood saasoo kale marka saddexda qaybood marka laga yimaado hadana wuxuu sii kala leeyahay dakhligu madaxyo madax kasta dakhliga ka soo hoydo wala garanaya oo wax loo sameeyo marka ugu horeysa estimate of revenue wala sameeyo dakhliga waa la qiyaasaa waxa la madaxa waxay naga soo galaya dakhli intaas ay naga soo galaya hadhow marka bishii dhamaato soo anaga waxa loo sameeyo waa daily waxa loo sameeyo waa monthly waxa loo sameeyo waa quarterly waxa loo sameeyo yearly inta waa loo sameeyo sanadihii 3 bilood 6 bilood iyo sanadkii inta waa loo sameeyo marka waxaad ogaanaysaa madaxaas dakhliga ka soo galaya intuu leeyahay bisha tan waxa ka soo galay bishii hore waxa ka soo galay 6 bilood hadda socday waxa ka soo galay 3 bilood hore waxa ka soo galay sanadka waxa ka soo galay marka madax u sameeysid qiimeyn oo aad u sii forecast garaysid ama u sii qiyaastid waxa ka soo galaya dakhli ayaad waxa u imanaysaa dhowtana gobol walba maxay naga soo gala dakhli gobolada marka laga yimaado hadhowna la yiraahdo bisha maxaa dakhli guud ina soo galay 3 bilood maxaana soo galay 6 bilood maxaana soo galay sanadkii maxaana soo galay kabacdi markaas waxa la ogaanayaa sanadka waxa soo galay yearly marka laga hadlayo sanadka dakhliga soo galay Puntland ee dakhliga gudaha ah marka laga hadlayo kabacdi markaas sanad aad heshid ayada waxa ka sii sameynaysaa wax loo yaqaano forecasting ama saadaashii sanadka soo socda ama sanadada kale soo socda sideedana marka la sameynayo saadaasha dakhliga
midna waxa weeye qualitative method baa loo isticmaalaa oo saan ku sheegay dadka decision makerska ee ku takhasusay saadaalinta dakhliga iyo source of revenue iyo dakhliga meelaha laga helayo ayaa la isugu yeelaa midna waxa weeye quantitative oo waxa weeye يعني هو هذا هي ستة داتا يحب هذا ستة داتا ذي حتى هذا هي ستة أيضا حد كسي سمعنا سوى الله يقانا صادالين فهذا اللي نوح إنه هاي سنة حب يداتا الله هاي سنة كي يعني بدل المركز الأساسي دخلي لو وصل بالعوي لما أنت دخلي بدل أنا هاي ستة دخلي جدها مركز لقاه الله وحوي فرق ديفرنت من باول حياة كوا كله صوص عندنا مرة والبحر لو وصل سمية وحلا يقانا صادالين حد يرتضى ما حكى صباح الشيء لو صادالين دخلي بدل وحوي سنة كصوص هذا سيان ميزانية عن وجينا نحن محيط ما دام قرض الميزانية ديارنا ينقرشات كي وساردها إن عن دخل أنت كبضا وعنه هينو مشرته حدا كصبحنا مركز قاعد صار له صادة ليها. تمام. إسلا صادة شانو تحراعية. بل حتى تسجود وصادة لسه دقالها بنتلان سيدا وكسوده. هل كوجاري كراية طبعا لا بصد حسنا صوصه أما والشنطة حكومة ثلاثة هيسو. runtii marka laga hadlayo xukuumadan cusub ee hadda Siciidani uu hogaaminayo waxa weeye way ka duwan tahay xukuumadihii hore waxa ka go'an mar walba commitment ka in la kordhiyo dakhliga Puntland iyadoo awalba sanadka ku xiga ama sanadada kale ay awalba mar walba sanad walba wax kordhi jireen laakiin sanadka kan ama xukuumadan cusub waxa ka go'an mar walba dakhliga Puntland in la kordhiyo sida lagu kordhinayana waxa weeye marka ugu horeysa in la fahansiiyo dadkii wax loo yaqaano bixinta cashuurta ay bixinayaan iyo dakhliga ka soo hoyanaya in waxa weeye aan sifo gooniyo loo isticmaalin dawladdu ay sameynayso wax loo yaqaano transparency accountability iyo publicity oo dadkii loo soo gudbinayo miisaaniyadda ka qayb qaadanayaan dakhliga soo gala Puntland dadkii loo soo bandhigayo waxa weeye ay dadkii oo dhan wada arkayaan source of revenue dakhligu naga soo galo marka dawladdu hadda waxay ku dadaalaysaa inay bulshada la wadaagto si daahfuran dakhliga soo gala miisaaniyadda dawladdu haysato waxa looga baahan yahay xagga u socoto iyo waxa lagu qabanayo wuxuu iyaga clear oo cad in shacabka iyo bulshada la wadaago ay dawladda hadda diyaarto marka dadkana marka la tuso waxa loo yaqaano daahfurnaan iyo transparency iyo accountability iyo isla xisaabtan meesha waxa imanaya in iyaguna ay ka qayb qaataan dadkii oo waxa weeye cashuurtii ay ku dhiiradaan in iyaguna bixiyaan oo cashuuraadka delinquent taxka dib u dhacay revenue dakhliga ku baaqday in dakhli fara badan hadda joogo ka soo hoydo Professor Nurani waxaa waasna bal inuu qiimayntaas ka qayb qaato koritaanka dhaqaalaha iyo meesha la higsanayo dabcan oo tigi karayo 2-3 sano soo socda runtii sida hadda ka muuqata siyaasadda muxuu dawladdan cusub oo madaxweyne Deni iyo wasiirka maaliyadda runtii ilaaha laga sugayo dakhliga ay tahay inay soo kordhiyaan siyaasadda ay qaateen oo ah inay 85% dakhliga kor loo qaado runtii waxaad dareemaysaa inuu jiro hadda campaign xoog leh oo muxuu ka socda kordhinta dakhliga meelo badan oo wadanka ka baxsan jidka laamiga magaalooyinka hadda already waxa ka bilowday muxuu in laga doono cashuurtii sida meelaha xeebaha ah dhulka xeebaha runtii dakhli badan baa ka soo gala meelaha xeebaha runtii hadda barnaamijyo ayaa laga diyaarinayaa in dakhliga muxuu ku baaqda laga soo ururiyo waxyaabaha kale oo runtii dakhliga kordhin kara waxa weeye kharashaadka aan loo baahnayn ama unnecessary cost waxyaabaha la yiraahdo qarashka aan loo baahnayn marka la yareeyo iyada naftigeedu waa dhinac bay ka tahay kordhinta miisaaniyadda dakhliga oo dakhliyo fara badan oo runtii kharajo badan oo aan loo baahnayn oo muxuu iska bixi jira ayaa hadda aad loo yareeyay dawladdan ay yareysay taas waxay kordhinaysaa iyaduna dhinaca muxuu dakhliga sidaan ku sheegay tii horena waxa weeye qaybo badan oo canshuura oo aan la qaadin oo runtii loo baahan yahay in muxuu la qaado ayaa u qorsheysan sanadka soo socda in muxuu lagu kordhiyo dakhliga lagu badiyo waatahay waxaan doonay imanayaa bal maxamed waxaan doonayaa inaad si madax bannaan u qiimeysid qaabka dhaqaalaha koritaanka uu sameeynaya dhaqaalaha Puntland dabcan xogogaal baad u tahay sida wax u socdaan wadanka marka bal koritaanka dhaqaalaha uu sameynayo labada mas'uul ay noo sheegeen sidee kula muuqdaadeen xaqiiqatan iyaga iga waran wasaaradda oo nidaamkii iyaga ku jira xogtiina wax fiilaya iyaga ay siiyay laakiin si guud markeen u hadalno anu waxaan ba oran lahaa laba arrimood baa aad u kala muhiimsan tan ah kororka dhaqaaluhu uu sameeyay wadanka ay sheegeen waxaan u maleynayaa marka qiimeyn ka madax banaan iyaga la sameeyo unba la oran karaa waa saas ama saas laakiin waxa aad igala muhiimsan taas aniga maadaama hada aynu qiyaasayno in dhaqaaluhu korayo waxaa muhiim ah in kororkaasi ay bulshadu aragto saameyntiisa marka aynu rajeynayno sanadka soo socda
in Puntland miisaaniyadeedu kor u kacdo waa inaysan noqon kaliya lacagtii la ururinaya korortay waa in saameyntu ay ka muuqataa bulshada dawladda waxa aad iyo aad loogu dhalilaayo marar badan wasaaradda maaliyadda iyo farta lagu godaa miisaaniyadaha inaan lagu dhaqmin oo baarlamaanka tii hadda u dameysay waa ogeydo waxba ka taagnaa wala soo celiyay xisaab xirkii u dameeyay waxa lagu ma dhaqmin marka waxaan aad iyo aad anigu u sii xoojin lahaa arinta kororku waa alxamdulillah laakiin saameynteedu ha muuqato oo dawladdu ha qaadato mas'uuliyadaha bulshadu ka sugayaan ee wax waajibka loogu leeyahay marka in dhaqaalihii uu kordho xaaladiina ay sidiisii ahaato dawladda ammaan u noqon mayso ujeedada dhaqaalaha loo kordhinayo ee loogu dadaalayo in koror dhaqaale uu dhaco miisaaniyadu kor u kacdo waxay tahay waa in dawladdu ay si ka wanaagsan sidii hore u gudato waajibaadka bulshadu uga baahan tahay ee qaybihii kala duwanaa leh marka wayna muuqataayoo dee in dhaqaaluhu korayo ifafaalaheedu way muuqdaan oo inkastoo aan aad waxa la qabanaya shirkii maalgashiga Puntland waxaan rajaynayaa shirkaas iyo shirarka la mid ah talaabooyinkaasi inay keeni doonaan in maalgashadayaal badan wadanka ay ku soo hirtaan arintaas waxaan aad iyo aad xoog u saari lahaa kororka kan waxa faktorka koowaad ama arinta koowaad ee rumayn karta ama beenin karta ay tahay in ay diyaar yihiin siyaasadihii dhiirigelin lahaa dadka maalgashadayaasha ah iyo meesh deegaankii lagu shaqeyn lahaa sida amaankii shuruucdii inay waxaas oo diyaar yihiin marka ganacsiga iyo aan filayaa inay dhinacaas u xilsaareen inta siyaasadaha iyo ammaanka maalgashiga maxamed waxaan doonayaa inaan weydiiyo qaabka daafurka sidee noqonaya dabcan sidee dadka loola wadaagaya bulshada loola wadaagaya xagga halka ay marayso miisaaniyaddu iyo kororka ay sameynayso ama hoos u dhac ama dabcan maxamed hadda wuxuu soo jeediyey in bulshada mataqaanaa lala wadaago meesha wax maraya marka sidee daafurku noqonaya daahfurnaantu waxa weeye miisaaniyadda dalka marka la diyaarinayo inay civil society-ga ama bulshadu ay ka qayb qaadato awal waxaa dhici jirtay in wasaaradda maaliyaddu ay iyadu qaybta miisaaniyadda la diyaariyo kabacdi baarlamaanka loo gudbiyo kabacdina la ansixiyo ama la soo celiyo hadhowna dib loogu celiyo la ansixiyo laakiin hadda waxaa la diyaarinayaa qaabka hore qaab ka duwan oo ah in marka la soo diyaariyo marka ugu horeysa waaxda dakhliga ay soo diyaariyaan soo revenue dakhliga soo galiya xaguu ka soo galiya madaxyada kordhiga dakhliga laga helayo dakhliga sida loo helayo marka la ogaado dakhliga la helo ayaa waxa la ogaan karaa expenditure iyo kharashka la isticmaalayo hadii laakiin kharashka dakhliga dawladda soo galaya iyo kharashka baxaya ay kala bataan meesha waxa imanaya division iyo hoos u dhac baa imanaya marka si loo isugu jaangooyo kharashka baxaya iyo dakhliga la helayo marka ugu horeysa waa in reality-ga inta lagu soo dhawaado oo miisaaniyadda hadda la diyaarinayo si fiican loo soo diyaariyo wasaaradda maaliyaddu si fiican ugu soo farayaraysato kabacdina waxa weeye loo soo bandhigo dadka bulshada ah oo waxa weeye hawdhalada suuqa ama meelaha lagu qabto dadka la yiraahdo ku soo darsadaan waxaanu ka bedelnaa waxaanu ku darnaa saynu u galnaa qof walba markaa dadka waxa weeye wasaaradda iyo ay dadweynuhu is arkaan oo waxa weeye wixii laga dhigo wax daah furan waa qorshaha hadda socda dawladda tanna ay diyaar la tahay iyo wasiirka maaliyadda xasan shariic abdulqaadir ay diyaar u yihiin haddana waxa weeye qorshaheedii iyo hawshadii baa socda barnaamijkaasina wuu iman doonaa insha Allah kama wada qayb geli karaan markaagaas dadku halkaas shir dabcan sidee dadka oo dhan lagula wadaagayaa sidee dadka oo dhan u arki karayaan sida wax soconayaan dadka oo dhan kama wada qayb geli karayaan waa run laakiin waxa weeye cid walba cid baa matasha dadka ganacsatada ka qayb galaysa waxa ka qayb galaya dadka cashuur bixiyayaasha ah shaqaalaha tusaalaha suuqa jooga ee hay'adaha u shaqeeya ama shirkadaha laftarkooda cashuurta bixiya ganacsatada qayb ka mid ah waxa weeye bulshadii waxa weeye waa sector walba waxa ka soo baxaya group ka qayb qaadanaya barnaamijka kan oo waxa weeye inputkiisa iyo wixiisa ku darsanaya laakiin bulshada oo dhan waa run kama wada qayb qaadan kara qofka jooga tuulooyinka qofka jooga degmooyinka qofka gobolada kala jooga laakiin waxa weeye inay dadkii arkaan daafurnaanta socda social media baahinta ka qayb qaadato laftarkeeda wax badan baa meesha imanaya qofna ku arki karayo xogta ay ku gaari karto watahay waxaan doonayaa professor Nuurani xiriir noocee ayaa ka dhaxeeya wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha dhaqaalaha ee dibadda dhaqaalaha ka keena runta hay'adaha dhaqaalaha dibadda ka keena waa tan sheegnay oo ahayd mashaariicda ama projectska ay ka wadaan wasaaradaha dalka dhammaan wasaaradahaas mashaariicda ka socota wasaaradda maaliyadda waxay leedahay waaxda la yiraahdo waaxda deeqaha dibadda waaxda deeqaha dibadda waxa weeye waxay u xil saaran tahay inay isku xirto qorshayaasha deeqaha
wasaaradaha inay kala xiriirto waxay muxuu ahaa u xil saaran tahay inay ururiso ama diyaariso siyaasadaha deeqaha muxuu ahaa mashaariicda ay ka wadaan muxuu ahaa hay'adaha caalamiga ahi wasaaradaha Puntland waxyaabaha kale oo xil saaran tahay waxaa kamid ah in muxuu ahaa la ururiyo lana diyaariyo muxuu ahaa xogaha deeqaha in la diyaariyo wasaaradda maaliyadda diyaariso si ay ula wadaagto ama xiriir oo la yeelato muxuu ahaa deeq bixiyaasha ama donoriska ah si loo ogaado priority-ga muxuu ahaa baahiyaha ay qabaan muxuu ahaa wasaaraduhu in loo sameeyo muxuu ahaa mudnaanta say u kala mudan tahay la fiirsho mudnaanta degdega ah marka runtii wasaaradda maaliyaddu waaxda deequhu waxay la xiriirtaa dhammaan wasaaradahaas waxay u tagtaa mashaariicda ka socda wasaaradahaas ayay kormeertaa muxuu ahaa iyaga ayay muxuu ahaa la fiirisaa mudnaanta deeqaha iyo sida u kala mudan yihiin waxay kaloo ka diyaarisaa xogta ama database ayaa laga diyaariyaa marka xiriir fiican oo joogto ah ayaa had jeer ka dhaxaya maadaama waxtan ay cusub tahay wax cusub ay tahay ilaa hadda intay jirtay 8 bilood shaqooyinka ay qabatay oo iyadoo isku xiraysa mashaariicdii iyo muxuu ahaa wasaaradihii waday iyo hay'adaha caalamiga ah u dhaxaynaysa ay hawsha wadaa waa tahay wax dakhliga koray ma jiraan oo la tilmaami karo dhinaca banaanka soo xirada inta xukuumadda cusub ay talada hayso deeqaha caalamiga ah runtii horta inagu sideenaba wadankeenu deequhu waaga horeeto markaan aan dib ugu noqono waxay u badnaan jireen waxaa la yidhahdaa humanitarian deeqaha waqtigii burburkii hore wuxuu ahaa humanitarian ama kaalmo bini'aadanimo waagi dambe waxay isu bedeshay muxuu ahaa deequhu waxay isu bedeleen waxa la yidhaahdo dib u dhis ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo reconstruction and rehabilitation waqtiyadan hadda sanadaha u dambeysay muxuu ahaa dowladihii hadda muxuu ahaa 2018 iyo 2019 badanaa deequ waxay u badnaayeen development soo galay waxyaabahan aynu badanaa dhaxno muxuu ahaa kaabayaasha dhaqaalaha ayaa aad looga hormariyay ama infrastructure marka waxaad garanaysaa maadaama heer infrastructure ama loo gudbay development loo gudbay sida airportada maxaan ku sheegaa jidadka mashaariicdan GPLG-yada baa socda marka waxaanu ka gudubnay heerkii ahaa humanitarian-ka ah waynu ka gudubnay hadda waxaanu gudubnay heer rehabilitation and development waxaan ku jirnaa development ayaan ku jirnaa marka halkaas aad ka garanaysaa in deequhu ay xoogeysteen oo isu bedeleen heer infrastructure wax laga qabanayo jidadkii iyo airportada maxamed baan doonaya inaan usoo laabto inagoo dabcan ku dhow qaybihii dambe ee barnaamijka maxamed yuusuf jaamacadaha dalku ma buuxin karaan kaalinta takhasus maaliyadeed dabcan wasaaradda maaliyadda oo kale takhasusaadka ay u baahan tahay maamulkeeda iyo waaxaheedu inay yeeshaan ama dadka ka howlgelaya kaalintaas jaamacadaha waddanku ma buuxin karaya aad baad mahadsantahay maxamed runtu waxay tahay haa way buuxin karaan way buuxin karaana ma ahay way buuxiyeen oo wasaaradda maaliyadda markaa tagtay waxa laga yaabaa in la helo intaas oo qof oo jaamacadaha waddanka ka soo baxay oo wasiirka ka soo bilow ilaa iyo qaybo badan oo hoose inay yihiin wax soo saarka jaamacadaha waddanka laakiinse mid baan waxaan filayaa inay muhiim tahay si guud waxaa jirta caqabad ah inaysan iswaafaqsanayn waxa suuqa looga baahan yahay iyo waxa jaamacaduhu bixiyaan taasna eedeeda waxaan filayaa wax bulshada dhan qaadanayso khaasatan dib ugu laabanaysa dawladda si guud marka jaamacaduhu dhammaan takhasusyada iyo departmentyada ay ka kooban tahay wasaaradda maaliyaddu jaamacaduhu iyagoo waxay bixiyaan waxbarasho ah oo shahaadooyinka koowaad labaad lagu qaatay bixiyaan dibaddana waa laga keenaa marka si guud ardaydii ay soo saareen way joogaan oo jaamacadaha way ka shaqeeyaan si kalena macallimiinta iyo aqoon-yahanada jaamacadaha jooga waxay u badan yihiin badankoodu inay wasaaradana la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda ha noqoto ama wasaaradaha kaloo la xiriira ha noqoto marka doorkaasi waxaan u malaynayaa waxaan filayaa inay jaamacaduhu ku filaadeen jaamacadaha iyo dhammaan institutionada waxbarashadu ay doorka ku filaadeen waa tahay maxamed baan doonaya inaan u tago maxamedow ma jiraan diiwaangelin lagu sameeyey noocyada ganacsiga ee waddanka ka jira dabcan maadaama siyaasadda canshuuraha maamusho taasi qayb ka tahay in lala socdo waxa waddanka looga ganacsanayay ganacsiyada socda taas waxaa sameeyey waxa loo yaqaano dowladaha hoose regionalka iyo gobolada ayaa sameeyey laakiin hadda waxaan wadnaa bitaa ka duwan oo ah in la sameeyo registrationka ama diiwaangelinta ganacsatada businesska iyo ganacsiga ka socda Puntland oo dhan tusaalahaan businesska afar qaybood baa loo qaybiyo ah large business wax loo yaqaano businesska waaweyn wax weeye scale-koodu sareeyo sida tusaalahaan shirkadaha waaweyn ee kala dalka gulis ay ugu horeeyaan
هو large business baa la yiraahdaa taxpayers waa cashuur bixiyayaasha waaweyn waa iyagana waa la soo wadaa waxaa kaloo la soo wadaa in iyagana la sameeyo la register wax loo yaqaan medium taxpayers ama cashuur bixiyayaasha dadka dhexe wax weeye income-kooda medium-ka yahay ama dhexdhexaadka oo tusaanaan ay ka mid yihiin supermarketada iyo shirkadaha iyo wax weeye ama service provider ha noqdo adeeg service bixiyo ama product bixiyo wax weeye in business classification lagu sameeyo la kala qaybiyo businesska la kala saaro hadda la wada small business in isagana la diiwaan geliyo kii ka hooseeya mikrada ama representative tax ka wax loo yaqaano waa la sameeyo dhammaan waxaas oo dhan hadday socdaan waxaana la bilaabaya insha Allah hadii la garto sanadkan intaan dhammaan in Puntland oo dhan la sameeyo registration ku saabsan segmentation of business ka aan soo sheegay ama qaybaha kala duwan ee businesska watahay professor Nurani وما حيقول سياش دو طبعا يكون فوق حفيز كاغو هيكسان دقيقه دبته هذا soo koobaya dabcan qorshayaasha runtii dhow ama short ma aha term ma aha plan ka haweeye runtii maadaama xafiisku yahay xafiis cusub oo 8 bilood uu shaqeynayay xafiisku wuxuu diyaarsaday dhammaan waxa la wixii muxuu ahaa xafiisku u baahnaa ama muxuu ahaa haday noqon lahayd shaqaalihii ka shaqeyn lahaa haday noqon lahayd muxuu ahaa qalabkii laga shaqeyn lahaa dhammaan waa diyaarsan yihiin isla mar ahaantaasna waa hawl gashay mashruuc waaxda waa hawl gashay oo muxuu ahaa waxay la xiriirtay muxuu ahaa shaqooyinkii aan ku tilmaamayay ayay dhammaan fulisay waxyaabahaas waxa weeye waqtiga balaan baan leenahay qorshe ayaa noo degsan oo aan la wadaagno wasaaradda maaliyadda qorshahaas ayaa ku jira muxuu ahaa shaqooyinka waqtiga gaaban aan qabanayno waxa ka jira qorshooyin waqtiga dheer runtiistaan haday ku sheegay baa kamid ah for example waxa la yiraahdo muxuu ahaa treasury single account in la sameeyo oo dhammaan muxuu ahaa hay'adaha caalamigu deeqaha ay helaan ay soo maraan muxuu ahaa halakon soo maraan si markaas loola socdo muxuu ahaa deeqaha dalka soo galaya si mudnaanta u kala leeyihiin si markaa loogu fuliyo hadba deeqaha muxuu ahaa degdeg u baahan in wax laga qabto ama baahida markaa taagan in wax laga qabto marka insha Allah waxa weeye waqtiga dheer waxaan doonaynaa inuu ballaarto shaqooyinka ay qabanayso waaxdu iyo tan wasaaraddu qabanayso insha Allah mustaqbalka ayaan rajaynaynaa isla su'aashaas doonayaa Maxmed xafiiskaaga wuxuu higsanayay iyo marka laga hadlayo dib u eegista waliba aad diirada saaraya markan ilaha cashuura xafiiska kan marka laga hadlayo tax policy unit ku waa xafiis dhawaan la aasaasay aduu 2018 baa la aasaasay wasaaradda maaliyadda qaybta dakhliga waa xafiiskana wuxuu qaban doonaa waxa loo yaqaano tagaska cashuuraha cashuur noocee lagu soo rogi karaa shacabka what kind of tax ayaa lagu soo rogi karaa shacabka waa noocee amountiga laga qaaday xadiga cashuurta laga qaaday hadii lagu soo rogo intuu la kaan doona cid lagu soo rogayo waa cid siyaasadda cashuuraha in la sameeyo tusaalahan sales taxkii faadkii kuwii hore ee oolka ah ee dawladii hore qoreen in lagu sameeyo amendment iyo wax ka bedel oo siyaasadda cashuuraha laga dhigo mid yani la jaan qaadi karaysa ama ku soo dhawaan karta dalalka dariska ama adduunka marka xafiiska kan wuxuu ku qalabeysan yahay wax loo yaqaano equipment-igi iyo qalabkii ugu dambeeyay oo ah inuu ka qayb qaato siyaasad cashuureed oo waxa weeye aan waxna yeelan shacabka dawladuna ay ku soo urursan karto dakhli fiican iyadoo la eegayo principles of taxka cashuuraadka oo ay kamid tahay waxa loo yaqaano simplicity oo ah in la yareeyo waxan la fududeeyo in la sameeyo waxa loo yaqaano program of tax oo cashuurtii la baahiyo oo cashuur balaa wax badan halkii cashuur badan laga qaadi lahaa qofka tusaale 20% 18% oo kale laga qaadi lahaa in yani base-ka cashuurta la balaaliyo iyadoo 5-kii iyo 3-kii iyo 4-kii iyo 8-kii iyo wixii la qaadayay cashuurta ay sideeda iska tahay la ilaaliyo wax loo yaqaan equality-ga oo ah dadku cashuur bixiyayaasha isku wada income iyo isku wada dakhli ma aha waxa dhici karta adoo shaqaale mushaar qaadanaya oo madax bannaan oo shaqaale dawladeed ah shaqaale madax bannaan inaad qaadato su'aalan 500 qaar ay qaataan 600 qaar qaataan 1000 qaar qaataan 6000 consultant iyo hay'adaha kale iyo private-ka u shaqeeya marka in la ilaaliyo equality iyo cashuurtii laga dhigo progressive rate oo qofkii uu qaadi karayo marka income-ka uu kordho cashuurtaadu waa kordhaysaa oo saa ay noqoto dadku aan isku mid aan noqon marka xafiiskan wuxuu diyaarsan yahay inuu dhammaan waxyaabahaas oo dhan uu wax ka qabto oo na ka dhigo wax wanaagsan oo shacabka iyo bulshada aan waxba yeeleen dawladana wax fiican waad mahadsan tahay gabagabadiina ku dhow waxaan doonayaa inaad raacsato baaqaaga ama fariintaad u jeedinayso ganacsatada iyo cashuur bixiyaasha runtii ganacsatada iyo cashuur bixiyaasha Puntland waxaan u jeedinayaa dawladdu waa dawladiini cashuur waa bixisaan cashuurta aad bixisaana waxa weeye marka loo eego adduunka cashuurtii loo baahnaa waxa weeye ma aha
yeelkadeeda yaanaba ahaanay hadda intaa yar laydinka qaado ee raydkaa yar ah waxa weeye hadda cashuurta loo yaqaano corporate tax oo kale cashuur badan oo la qaadaa loo jirto way jirtaa laakiin waxa weeye Soomaaliya ka dhigtan doonaya waa cashuurta faa'iidada macaashka ganacsiga marka cashuuruhu waa la qaadaa laakiin raydkiska iyo waxyaabaha laga qaado dadka loogu dhufto waxa weeye aad iyo aad bay hooseeyaan yeelkadeeda saaba hooseeyaan ganacsatada waxaan u sheegaynaa dawladdu waa dawladdiini cashuurta iyo dakhliga dawladdu idinka urursano waxa weeye de inaad ka eegtaan meelaha kale qofku inuu isagu dhaho daaragtii benefit baa noqonaya si toosan uga faa'iidaya wadooyinkii waa la dhisaa dalgarow waad aragtaa inta wadda ka socota wadooyinka kale ee socda waad aragtaa intii haddeerto xukuumadda tan ay qabsatay maad arag shaqaale dawladeed ama shaqaale ciidan ama cid ka cabanaysa dawladda waxa weeye awal dawladihii hore waxaa laga qaybin jiray ama mushaarkii shaqaale ay bixin waayeen ama mushaarkii ciidankay bixin waayeen iminka kuwaasi waa la ka fargarayay ciidanka mushaarkooda ka shaqaalaha ka haykalka dawladnimada iminka waxa laga socdaa waxa loo yaqaano development stage oo ah dawladdu inay qabato capitalka iyo waxyaabahaas marka waxaan kusoo koobaya oo kusoo ururinaya dhammaan cashuur bixiyaasha Puntland meel kasta joogaan waxaan dileynaa cashuur bixiyaal fiican baatiin laakiin inaad intaa ka sii fiicnaataan ayaan rajaynaynaa insha Allah dawladnimadana aad fahantaan professor Nurani isla taladaas baan doonaya runtii ganacsatada kaliya maaha laakiin waxa weeye waxaa laga hadlayaa muwaadiniinta cashuur bixiyaasha ah dhammaan muwaadiniinta cashuur bixiyaasha ah runtii waxa weeye wadanku wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan baa dawladdu qabataa sida dhinaca amniga muxuu ahaa difaaca runtii wasaaradda dawladda Puntland waa ku amaanan tahay wax badan bay ka qabatay dadweynuhuna runtii waa garanayaa sida awgeed marka si loo helo muxuu ahaa kharajaadka lagu bixin lahaa amniga lagu sugi lahaa iyo difaaca dalka iyo dhammaan wixii muxuu kaabayaasha horumarinta dhaqaalaha ah waxa weeye ninka muwaadinka ah muxuu ahaa Puntlanderka waxa laga rabaa in xuquuqaha lagu leeyahay uu bixiyo dabcan taas waxay taraysaa in la daboolo baahiyihii muxuu ahaa dawladda looga baahnaa in la daboolo dadweynaha Puntland runtii aad bay ugu mahadsan yihiin waqtiyada tan dambe oo dhan sida ay muxuu ahaa uga bedeleen qaabkii muxuu ahaa canshuuraha u bixin jireen waagi hore canshuuruhu dib baa laga mari jiray laakiin hadda dadku waxa weeye aad bay ula qabsadeen way arkeen muxuu ahaa waajibaad saaran xuquuq lagu leeyahay inay tahay isla mar ahaantaasna waajibaadkii dawladda ay ka sugayeen way heleen xuquuqda dawladda ay ka sugayeen waa heleen oo dhinaca amniga ah bay heleen iyo dhinaca difaaca iyo adeegyada kale oo dhan loo baahan yahay marka waxaan soo jeedinayaa muwaadiniinta Puntland inay halkaa ka sii wadaan muxuu ahaa hawlka wadaale wali waa hogadi marka in la sii kordhiyo dawladnimo waxa lagu jira waxa way wax kala maaha waa dakhliga maxaa ka soo xirooda muwaadiniinta canshuur bixiyaasha ah ayaa dawladnimo lagu jira marka nin walba inuu mas'uuliyadda ay saaraa dawladuna inay ka soo baxdo dhinaceeda waajibkeeda waxa la waxay ummadda loo qabanayo in canshuuraha loogu fuliyo si madqaana labada dhinacba la isaga kaashado ayaan ku gubaabinayaa waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay professor Nurani maxamed yuusuf baan u imanayaa maxamed bal waxaan doonayaa maadaama aad dhageysatay caqabadihii iyo horumarka dabcan socda waxaan doonayaa adigu inaad si guud talo ugu jeedisid hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo dadka cashuur bixiyaasha iyo shacbiga gudaha aad baad mahadsantahay maxamedow taladeeda guud waxay noqonaysaa horta xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda maaliyadda iyo dadka canshuur bixiyaasha ah ma aha xiriir samafal iyo xiriir baryo waa xiriir ku salaysan waajibaad iyo xuquuq qofka muwaadinka waxa xaq loogu leeyahay inuu canshuurta ku waajibtay bixiyo dawladdana waxa ku waajib ah in qofka muwaadinka uu helo canshuurta uu bixiyay wixii uu ugu lahaa soo celinteeda marka baaqyada ay jeediyeen agaasimayaashu waxaan filayaa waa meeshay ku jiraan laakiin waxaan u malaynayaa ficilada haddii lagu daro dawladdu inay isku daydo inay dadka ficil tusto in shacabka la kordhiyo kalsoonida ay ku qabaan dawladooda tusaale ahaan marka qofku uu arko canshuurtii uu bixiyay oo wax uga soo laabteen wuxuu fahmayaa oo dareemayaa inay muhiim tahay inuu canshuurta bixiyo iyadoo aan lagu dhibin isagoo aan dhuuman bay noqonaysaa inuu geeyo marka taas waa qodob koowaad marka taasi see ku dhici kartaa taasi waxay ku dhici kartaa in dawladdu ay daahfurnaan samayso oo waxa dawladda u soo xarooda la isla yaqaan oo isla xisaabtan uu jiro inagu weyn isaguna isla inagii baynu nahay oo xan badan baa jirta dhanka dawladda ah aad baa loo xantaa marka in dhammaan meelahaas la gufeeyo oo la isku dayo bal wixii yaraayo la helay in lagu tiirsanaado tan labaad waxaan ku dari lahaa
agaasimayaashu waxay aad uga hadleen taageero dibadda ay timaada iyo barnaamijyo soo socda iyo waxaan u malaynayaa haddii la rabo in mustaqbalka waddankani uu horumar gaaro oo hore loo tallaabsado waxaan u malaynayaa inaynan kusii tiirsanaan karin kaalmo dibadeed iyo waxaynu hay-ado iyo wadamo ajnabiya ka helno waddankani runtu waxay tahay khayraad ku filan buu leeyahay khayraad ku filan buu leeyahay weliba ku filan maaha ka badan adduunkana wax tari karo marka waxaa laga rabaa hay-adaha dakhliga iyo wasaaradda maaliyaddu inay dadakan xoogooda tusaan khayraadkooda u soo saarsadaan aynuna isku tashanno isku tashigaan sheegaya ma aha in la yidhaahdo dadka idinku wadooyinkiina dhista ya qofka muwaadinka ah haddii uu canshuurtuu bixiyey uu waayo wixii kaga soo laabanayay waxaa dhacaysa inuusan canshuur dama bixin xaqna loogu yeelanayo marka tan kale waxay tahay aan aad ugu talin lahaa wada shaqaynta in hawl isku mid ah la hayaaya tusaale ahaan wasaaradda maaliyaddu waxay dejisaa siyaasado waxay dejisaa shuruuc waxaan ku talin lahaa siyaasadaha iyo shuruucda la dejinayo inay ku beesgaraysnaadaan cilmi baaris tusaale ahaan siyaasadda wasaaraddu dejinayso waa inay ka timaadaa cilmi baaris marka halkaa waxaa ka imaanaya xiriirka ka dhexeeya jaamacadaha iyo wasaaradda waxay ka faa'iidaysan kartaa aqoonta iyo cilmiga yaalla jaamacadaha intii dhowr qof intay qol galaan ay siyaasad iska samayn lahaayeen waxa fiican siyaasaddu inay ku timaado baaritaan cilmiyeysan oo xaqiiq ah marka meelahaas oo kalena waxaan rajaynaya in aad looga wada shaqayn karo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin professor nuurani xaaji maxamuud oo ah agaasimaha deeqaha dibadda ee wasaaradda maaliyadda dowladda puntland maxamed maxamuud muuse oo ah khabiir siyaasadaha cashuuraha ee wasaaradda maaliyadda dowladda puntland maamula iyo maxamed maxamuud yuusuf oo isaguna ah hormuudka kuliyadda xisaabaadka iyo maamulka ee jaamacadda boosaaso faraceeda magaalada garowe caasimadda puntland dhammaantood waxay nagala qayb galayeen barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadlaynay ilaha dakhligu kasoo galo wasaaradda maaliyadda puntland iyo hanaanka loo maamulo guud ahaantiin waan idinka mahad celinaya waqtiga iyo ka qaybgalka barnaamijka waxaan idinla socodsiinaya anigu maxamed maxamuud xaliye dhinaca farsamaduna waa faysal colaad kan mid ka xigeentan ku kulmayno nabaadiino